tirsan ehelada Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ka tirsanaa jamhadda oo alif ee ka dagaalanta deegaanada ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo dhawaan laga soo qabtay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug isla markaana maalmahan bal isla dhaxmarayay in loo gacan galiyay Itoobiya ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya in wiilkoodii ay u gacan galiyeen Itoobiya oo ay sheegeen in cadaawad gaamurtay ay ka dhaxayso madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ehelada Qalbi Dhagax si gaar ah ugu eedeeyeen Qalbi Dhagax oo ahaa muwaadin Soomaaliyeed oo joogay magaalada Muqdisho oo Gaalkacyo joogay oo meel kasta joogay oo magaalada dalka Soomaaliya kamid ahaa yaa shalay halka lagu kala gatay waxa laga gaday gabre wuxuu raaligelinta shacabka Soomaaliyeed wuxuu ku dhaafsaday raaligelinta iyo mahad celinta uu soo mahad celinaya gabre yuu dhaafsaday waa arrin dhacday oo xun oo aan weligeed horay u dhicin taariikhdana ku cusub waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed madax meel ka sareyso la saraaxa male aqalka hoose iyo aqalka sare ummadda waxaan ka codsanaynaa arrinta taariikhda madow ee faxaashiga ah inay war degdeg oo Soomaaliya way naxday wax kaga bedelan inaan kaga helno waxaan meesha isugu nimid anu ma garanayo shacabkii aawad baaka tumay shacabka way xabadaha riday shacabka way dooda dhistay farmaajo wuxuu yiri doodo shacab ma doo shacab dadka leeysa oo galata asweydiine ma doo shacab dadka leeysa oo galata ma doo shacab galka ya janib shacabka ma doo shacab ma oo galata in iska dhigaalo ku jir farmaajooyinka iyo meelaha دربياش كله بدوش عبادة ما هو بدوش عب والدولة ما كاتم وعدد وصل الضد عبد الرحمن عبد الله هون كبل تي في مجال مقدشو.